بسم الله الرحمن الرحيم وانا محمد سليمان dib ugu soo noqday barnaamijkayga inta badan aan taaban jiray maanta way ka duwan tahay midii hore aan awal aan sheegi jiray maanta niyo waxaan rabaa inaan ka hadlo maamulka magaalada Jigjiga waxaan ognahay sida loo qaybsaday ama saami qaybsiga loo qaybsaday waxa ka maqan shacabka ka soo jeeda ama ummadda ka soo jeeda degmada Awbarre ama Harawo aan idhaahdo saami qaybsiga maamulka magaalada Jigjiga dadka kaliya aan laga qayb gelin waa shacabka waa dadka ugu tirada badan ee magaalada Jigjiga degan bay yihiin dadka hantida ugu badan leh ay ka mid yihiin maanta Jigjiga waxa uu xiga oo wadaag ay la leeyihiin waa wax weeyaan degmada Awbarre meesha laga siiyay degmada Harshin waan ku faraxsanahay meesha laga siiyay Baabili waan ku faraxsanahay meesha laga siiyay Qabri Bayax waan ku faraxsanahay Tulli waa laga siiyay waan ku faraxsanahay intaaba midna kama soo horjeedo midna ma diidana shakhsiyan aniga Maxamed Salmaan ahaan iyo shacabkaygu midna ma diidana laakiin waxa ayaan darro ah in shacabka ka soo jeeda magaalada Awbarre oo u xigta Jigjiga maanta waxaan waxba ahayn xuduudoodu ay soo gaadhiso oo wadaag ay leeyihiin in la iska indhatiro kursiga ay lahaayeen ee maamulka magaalada Jigjiga ay ku lahaayeen in la siin waayo waa ayaan darro waxa ayaan darro in qabaleyada ay ka maqan yihiin waxa ayaan darro in maamulka magaalada Jigjiga xafiisyada ay ka maqan yihiin waxa weeyaan saami qaybsiga hal la saxo cid aan la hadlayaa inta badan waxa weeyaan shacabka ama dhalinyarada ma aha waxa weeyaan dadka xilalka haya weey ee xukuumadda ku jira weey warniyow saxa oo tani waxa weeyaan waa la wada leeyahay wixii aad dadka u garateen ee sharaf iyo sumcad ba leh inaad dadka maanta aad intii ay lahaayeen dadka kale reerkaas oo kaliya ka maqan reerka ka maqanna inaad booska ay lahaayeen aad siisaan ayaa karaamay sharafaydigu يعني إيدي كيدين سيدا درتيد وحن إذا قعد صنينا إن أدمان تصوص صحدان كرسيجي كم مغنى باشا وحنا ندقر الجيني أنا قدال كصوص حدونتان سلام الله عليكم